haddaba fiidiyogan waxaan kugula wadaagi doonaa 8 shay oon hubo 8dani inay tusayaan qofkaasu inuusan meelna kuula socon ee wakhtigaaga u luminayo 8 calaamadood midda u horeysa waxay tahay qofka mashquulkiisa badan ugamaad baran inuu marar fara badan uu mashquulsanaado ugamaad baran qofkani inuu habeen iyo maalinba mashquulkaaga jiro laakiin hadda mashquulkiisa batay jadwal maalmeedkiisa waa taqaanaa wax ku soo kordhayna ma jiraan laakiin waxa ku soo kordhay oo adigu aadan dareemi karin ayaa waxay tahay in uu adiga ku raadinayo qiil uu noloshiisa kaaga saaro taasaa keenaysa markaad ku tiraahdo aniga waad iga mashquulsan tahay dee aniga adigu islama socon karnana inuu ku baryo ku yiraahdo maya saas ma maxaa yeelay wuxuu diidayaa inaad fahantid isagu inuusan xiisa qofku ku haynin qodobka labaad wuxuu yahay markuu qofku kaaga jawaabi waayo fariimahaaga waad wacdaa kaama qabanayo fariimaad u diraysaa kaagama soo jawaab celinayo ama hadduuba kaaga soo jawaab celiyo waxay qaadanaysaa 7 saacadood 8 saacadood ama maalin dhan bayba qaadanaysaa ama waxaa dhici karta inaad fariimo u dirtid oo kaaga soo jawaabi waayo laakiin maanta maalinimadu markay dhammaato kadib in lagu soo waco kadibna lagu yiraahdo inta wax soo qorqori lahaa waan daalanaa waxaan doonayay inaan hadda codkaaga maqlo iyo wax lamida qofkiina markaa uu si degdeg ku macsalaamayo ku yiraahdo waan seexanayaa waana daalanahay adigi marka halka waad ku xirxirantahay waxa laga yaabaa inaadan la doodin oo dan or maxaa kugu dhacay maxaa iska ka bedelay laakiin waad dareemi karaysaa inay wax qaldan yihiin midda saddexaad waxay tahay haddii aad ballan gashaan ballanta qiil buu raadinayaa qofku ballanta qiil buu raadinayaa berri meel miyaad aadaysaa haddaad ku tiraadid wuxuu ku leeyahay berri mashquul baanahay ama waxay ku leedahay berri mashquul baanahay hawlaa iga dhaca danaa iga dhaca ayeedeed baa halkaa ku dhimatay tacsideedii baa la dhigay maxaan idhahdaa awowgay adeerkiisa cisbitaal yaalla oon raba inaan aado eedaday baa maaragtay magaalo Soomaaliya ku taalla degan oo xawaaladan berri u socdaa lacag inaan diro danahayga aad bay berri u fara badan yihiin waxaasoo dhammi waa wax macquul u muuqda laakiin wuxuu kaga fakanayaa oo qiil u raadinayaa si aynan u suurtagelin la kulankaagu midda afaraad waxay tahay inaad mar walba adigu dhankaagu xiisuhu u bato ood mar walba adigu xiisaynaysid inaad noqotid adigu qofka daadihinaya jacaylkaba inaad noqotid qofka mar walba gacanta ku dhegan aan mid idin sheego looguma talagelin jacaylku inuu qofna 70% inuu noqdo qofna 30% inuu noqdo looguma talagelin waxa loogu talagalay labada qof inay si siman ay isu jecel yihiin si siman inay isu fahmayaan si siman oo labadooduba ay ka siman yihiin inay sinaani jirtaa loogu talagalay tana waxay keentaa inta badan dadku markay fahmi waayaan ama qodobkan aysan xalinin wuxuu ula guuraa markay bari guursadaan markaas waxaa dhacaysa in guriga markii la galo aysan isu dheelitirnaanta in fara badan qoysaska Soomaalida ka jirtaana waxay ka bilaabataa waa meeshan qodobka shanaad wuxuu yahay hadduu qofku khaa'in soo ahaan jiray taariikhdiisa markaad waraysatay waxa laga yaabaa gabadhuna ku tiraahdo haa laba wiil baan hadda kor isku soo waday ama wiilkiinu ku yiraahdo haa gabdho fara badan baan isku soo waday dadka qaarkood waxay ka tahay faan laakiin dhaawac bay u geysanaysaa maartay shakhsiyadiisa iyo xiriirkan cusub ee uu bilaabayo haddii qofku calaamadaha uu lahaan jiray oo dad soo khiyaani jiray intay doontaha kugu qaadato adiguna waxaad ka mid noqon doontaa kuwii ka horeeyay kuwaasaad la mid noqon doontaa saa darteed qofku wixii soo dhaafay waa waxaad ku qiyaasi kartid qofkani shakhsiyadiisa kuuma sheegayo inuu isbedelay laakiin wuxuu ku leeyahay waa soo khiyaanay waana soo khiyaani jiray waa soo samayn jiray wixii uu ku xalliyay iyo waxa maanta uu doonayo laakiin inuu noqdona kuuma sheegayo saa darteed waxay ku tusaysaa qofkaasu in uu ku khiyaani karo ayna dhici karto inuusan meel sax kuula soconin maxaa yeelay waa qof xiise iyo xunbaba way dhacaan baa layidhi waa qof xiise kuu qaba waa intuu maalmo kaa baranayo maalmo kadibna uu kaa xiise dhici doonaa qodobka lixaad wuxuu yahay inuu qofku mar walba adiga khiyaanada kugu eedayo inuu adiga ku tuhmo inuu ku weydiiyo telefoonkaaga tus inuu ku yiraahdo maxaad ku maqnayd yaa la hadlaysay xagee jirtaa gabadhaas miyaad la hadlaysay ama se wiilkaasaad la sheekaysanaysay iyo wax lamida inuu qofku mar walba adiga ku eedayo maxaa yeelay waxa isaga gubaya oo uu dareemaya waxa uu isagu ku maqan yahay samaynayo saa darteed si uu u daboolo oo qiil ugu helo waa inuu adiga ku eedayo meesha uu isagu taagan yahay waa inuu adiga ku keeno dareen ahaan xaqiiqadaas ma jirto waxa laga yaabaa inaad daacad u tahay oo waxba samayn maadaama marka isagu uu wax ku maqan yahay ama iyadu ay wax ku maqan tahay oo khiyaanada ku jirto waxay qofkaas mar walba wuxuu ku malaynayaa adiguna inaad ku jirtid ama aduu mar walba kugu eedaynaya si isaga tiisa aadan u dareemin qodobka toddobaad wuxuu yahay waqtiyo gooniya lagu soo wacaa waagii hore waa laga warhayn jiray maalintu xad ma lahaan jirin
waa la ismaqli jiray fariimo la isu qori jiray laakiin hadda way isbedeshay hawshii shaqo cusub ma soo kordhin hawlo kale iyo dana cusub oo kale ma imaanin laakiin waqti gooni uun baad ku ururtay hadda oo maalinta ka tirsan taas waxay daliil cad u tahay oo ku tusaysa in qofkaas uu qof kale uu noloshiisa ku soo biiray si qofka kale waqti loogu helana waa in adiga waqti gooniya maalintii lagu riixo waa in jadwal gooniya lagu sameeyo hadda waagii hore kaligaa baa jirtay garoonka kaligaa baa lahaa kaligaa baa dhanka doontid buu ordi jirtay telefoon waqti harta soo wici jirtay fariimaha waqti harta soo diri jirtay laakiin hadda arintu way isbedeshay waa in waqti gooniya marka lagu sameeyo waa in la idin kala leexiyo waa traffic light-ka idin dhaxeeya adiga qofka kale qofkan aad nolosha la wadaagtaan ama aad doonaysaa ma irtay mustaqbalkiina aad la wadaagtid saadarteed calaamadaha ku tusaya qofkaas inuu ku khiyaanayo waa inuu waqti gooniya adiga ku sameeyo midda sideedaad ee ugu dambaysa waxay tahay saaxiibo cusub oodan hore u aqoonin qaraabo cusub baa ku soo kordhay telefoonka ayaantan waxaa lagu leeyahay wiil baadiye laga keenay baa shalay soo galay wadanka marka wiilkaasu kaalmo u baahan yahay inaan caawiyo raba adigu qayb kama tihid laakiin qofkani wuxuu rabaa inuu adiga wax kaa qariyo soma waa inuu marka qiil kuu sameeyo ku yiraahdo qof aanu qaraabanahay gabdha aanu saaxiibanahay baan aadaya inay gabadhu ku tiraado waxa dhici karta wiil iska bulo qol cidla joogay inay u sii socoto waxa laga yaabaa inuu wiilku ku yiraahdo rag aanu qaraabanahay baan u socdaa maanta oo la soo qadeynaya laakiin waxa dhici karta inuu gabar iska bulo meel cidla degan inuu kaligeed u sii socdaa dhici karta hadhowdii marka qofka markaad wacdid oo ka taga kadib waxa dhici karta inuu kugu xanaaqo maxaad soo wacaysaa kalsooni miyaadan igu qabin soo kuma or meeshaasaan aadaya maxaad aniga igu kalsooni xunta inuu isdaboolaya ma ahane maxay dhib keenaysaa qofku inuu hadda kaa tago cidduu doonaba hala joogay qofka aan isjecelnahay ama qofka adigu aad jeceshahay maxay dhib kuugu noqonaysaa inaad teleefonkiisa qabatid ciddaa doontid ba la joogay ilaa kulli bariba bannaanka u soo bixi waad guursanaysaa dadkoo dhan baa ku arkaya soma maxaa keeni kara qofku inuu xanaaqo marka waxaa keenaya wuxuu diidayaa inuu ku baro inaad teleefon ka soo dabadirtid oo markaa dadka uu la joogo iyo aad ogaatid dadka uu la joogaa marka dad saxa ma aha waxbaa khaldan waxay ku tusaysaa qofkaasu waa calaamad cad oo ku tusaysa qofkaasu inuu ku khiyaanayo qaraabo cusub baa soo korortay iyo haddaad maqashid dadaadan hore u aqoonin oo soo kordhay oo lagu leeyahay dadkaasaan la jiraa telefoonkana markaad aadid waxaa lagu leeyahay gurigooda markaan tegayba saan meel telefoonka isaga saaray maanaaba fiiriyeyba waa qof hawlo kale ku maqan sidaa darteed calaamadahan iyo kuwo kaloo fara badanba waxay tusayaan qofkaasu inuu ku khiyaanayo waqtigaaga luminayo meel saxa oo uu kula socdaana inaysan jirin dadka noocaasihi weligood ma aflaxaan weligoodna meel ma gaaraan horumar ma yeeshaan aakhirkoodana nabsiga ay bini'aadamka kale ka soo urursadeen ayaa meel ugu urursan hal qof oo inkaar qaba oo ka gudabay marka dambana ay la guri galaan waana sida ay noloshu tahayba watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waxa weeye adduunyadu maanta hadday kuugu jirto dadka ka caqli badan tahay wax khiyaani kartid oo isdaba marmarin kartid waxaad ogaataa qof baa meel kugu sugay nabsigii oo dhanba kuu kaydiyey ka bacdina kaa jaraya markaasaad arkaysaa qof nolosha meel dambe ka jooga oo qof la nool oo qofkaas uu si xun ula dhaqmayo haddana aan ka tegi karin maxaa yeele wuxuu is leeyahay waqtigii kugu soo dhammaa hadda meel kale ma aadi kartid in lagu furo ama aad furtid xal kuuma noqonayso wuu ku qasbanya marka meesha inuu joogo halkaasaa marka daamanka looga garaacaya oo looga goynaya wixii dadka kale uu ka soo jaray haddaba dhibaatadani hadday dhacdo maxaa xal u ah taasna waxaan kaga bogan doonaa fiidiyoga kan ku xiga wassalaamu calaykum